Maamulka degmada Jalaaqsi oo horkacaya gudoomiyaha degmada Nuurdheere iyo xildhibaan Cabdiladiif oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta waxa ay si wada jir ah u bilaabeen dadaalo looga hortagayo fatahaad looga baqdin qabo webiga Shabeelle ee mara degmada Jalaaqsi si loo adkeeyo kaararka jilcan ee webiga waxa uu wadaa biyo aad u badan waxaana looga baqdin qabaa inuu fatahaad noqdo ugu horeyn waxa goobtaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiladiif oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle maanta waxaan joognaa degmadii Jalaaqsi waxaan la joogaa gudoomiyihii degmada maanta waxaan sameynay kormeer maadaama webigii uu biyo keen yahay waxaan u sii diyaar garoobaynaa fatahaad ka hor intii aysan fatahaad dhicin ka hor ayaan ka sii diyaar garoobaynaa caratuur iyo waxyaabaan isugu darnay marka hay'adaha iyo barnaamijyadan qaabilsan waxaan ka codsanaynaa inay indha iyo dhaga u yeeshaan maadaama degmadan wax badan lagu iloobay fatahaada inta badan fatahaada badan ay samayso laskana iloobay maadaama hadda amnigeedii 100% yahay anagii maadaama amnigeeda 100% yahay anagiina aan dhex joogno marka waxaan u sheegaa dhammaan hay'adaha shaqada kule haday noqoto caratuur haday noqoto biyo celin ama biyo xireen inay degmada si degdeg u soo gaaraan maadaama qoraxeedkii hadda laga baxo oo la galayo dayrti gugi la galayo marka insha Allah anagana mar walba waa taaganahay waana joognaa inaan la shaqeynana diyaar u nahay dhammaan xildhibaanada iyo gudoomiyihii degmada inaan la shaqeynana diyaar u nahay lana soo dhaweeyo cid walba oo degmadan wax u qabanayso amnigeeda iyo wax walbana gudoomiyihina waa joogaa waana la kafaalo qaaday degmada horumarkeedan inaan ka wada shaqeynana isku ognahay si degdeg insha Allah inaan soo gaartaan aan jecelnahay insha Allah wabillahi tawfiiq ugu dambeyn waxa hadalka soo xiray gudoomiyaha degmada Jalaaqsi Nuurdheere waxa soo socdo biyo laga deerinayo oo fatahaada Jalaaqsina waxay leedahay meel biyaha ay ka baxaan oo dhul badan oo balaaran oo biyaha ay ka baxaan marka Ilaahayna inuu nala garab galo hay'adaha ay qusaysana anagana waa bilaawno shaqada u jeedin sida aragtaan waxaan rabnaa in meelaha ay ka baxbax jireen biyaha xooga aan buurno hay'adihii shaqo ku lahaa in ay ilgaar u lahaadaan degmadan wax badan oo wax qabadaha loo qabalahay waxa la leeyahay amni kama jiro go'doon waaye maanta go'doon maaha baabuurka xamar ka soo raacda ma kartaa kaabildooni ka soo raacda ku ma kartaa shala go'doon ay dad ku marsan jirteen maanta go'doon maaha qof walba wax u qaban karto ama hay'ad haday tahay dawladda Hirshabelle wala kala leeyahay wasiirka xigeenka waa hadda wax garabkayga taagan biyaha tamarta hawsha aan hayno waa hawshiini fatahaadaha iyo systemka xildhibaanna waa u tahay deegaanka waa ka soo jeeda xildhibaanna waxaan ka codsaynaa in xilaaradda kula mid kaana inay ku soo daydaan Cabdiladiif ay degmada yimaadin ay yiraahdaan waxyaabaha aan hayno ay nala arkaan meelaha naga dhimanna ay noo buuxiyaan marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweyne ku xigeenkaba xaaladaha aan ku jirno way og yihiin degmooyinkii shalay hadaan ka harsanayn maanta inaan la tartarnaan diyaar u nahay kaalintayna waa qaadanaynaa mid dadtiinaha naga maqana inaan la soo garab istaagtaan oo waxyaabaha aan xaq u leenahay ka degma ahaan aan xaq ugu leenahay Hirshabelle inaan ka helnaan rabnaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha ma waxaad sameynaysaa degmada Jalaaqsi keenay maamulahan waxaad sameysay in aad sameysay bal dowladda shacabku degmada Jalaaqsi deegaanada Soomaaliya maxaad baa u jeedinaysaa shacabka reer degmada reer Jalaaqsi waxaan u jeedinayaa war dalkayna inaan dhisano oo dalkayna aan wax u qabanno oo nu istaagno oo danta guud aan waqti siina 12 saac maanta beeraha fasha dukaanad gadaa maalki waa inaan hal saac oo jaanis aan siinaa degmadayna qof walba uu istaagto farkiligeed falma dhaqdo shacabka reer Jalaaqsi waa shacab aad u wanaagsan waxyaabo badan oo ay la qabteen waa jiraan haddana waxaan rajaynayaa haday dalta iyo haday dibad tahay inayna soo garab istaagaan ay dalkooda wax u qabtaan ay waqti ay galshaan dalkooda assalaamu calaykum Cabdi Nuur Mire Hirshabelle TV degmada Jalaaqsi